munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya u magacowday wadanka Sweden ayaa si ballaaran waxa loogu soo dhaweeyay magaalada Stockholm sida warbixinta warkaan noogu faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Cabduqaadir Daahir. xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhi doona dalka Sweden iyo dalka ku buuhoobay Scandinavianka Masrac Cawaale Cali Kulan ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. xafladaas oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa waxa ka soo qayb galay culimo u diin waxgarad haween dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Stockholm iyo guud ahaan dalka Sweden. xafladaas oo lagu soo dhaweynayay safiirka ayaa waxa hadallo ka jeediyay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay xafladaas iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin safiirka loo soo magacaabay ayna la soo dhaweyn doonaan oo ayna gacan ka geysan doonaan sidii dib loogu dhisi lahaa safaaradda Soomaaliyeed ay ku leeyahay dalka Sweden ayna ballan qaadeen in ay la shaqeyn doonaan safiirka ay ahayd waqtigii uu ku habboonaa in loo soo magacaabo safaaradda dalka Sweden. waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa safiirkeena cusub ee wadankan fadhin doona mudane Cawaale Cali Kulane. Cawaale waxaan leenahay ilaahay ma aragtay hawsha loo soo diray ha u fududeeyo. ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa inay ma aragtay ay la shaqeeyaan oo garab istaagaan. dabcan marka meeshaas waxaan ka garanaynaa Cawaale waxa shaqada uu qabanayo hadday qurxoonaato oo hagaagto hadda shacabka Sweden degan ayaa amaantaas iska leh oo la shaqeeyo garab istaagaan. wixii halaaba guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Sweden ayay ka halaabeen oo qabsami waaya. waxa alla mahadiya caawa farxad gaar inoo ah 27 sano kadib inuu maanta nala fadhiyo safiir dawladda Soomaaliyeed ka socda oo sidoo kale waxa goobtaasi ka hadlay safiirka u fadhiyay Soomaaliya dalkaas Ruushka Masrac Cabdullaahi Maxamuud Warsame oo howlo shaqo u jooga dalka Sweden markaana goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri waagaas ninkii joogay un baa waxa ogaan kara ee soo arkay dawladnimada xanuunka ay leedahay markay burburtay iyo dhibaatada maanta jirta qofkaas dareemi kara laakiin qof wiilba maal riwaayad bay ka soo deeyeen telefishinada mid waxa ma aqaan laba wiilo meeshii xamar weyne balooni ku cayaarayso waa hadda inta burburka jiray oday waayela u yimid waryaha yaa sidaan u galay xamar midoo weydii kii kale ku jeestay wuxuu yiri kaale abdiyo kaale duqa waxaas leeyahay maqal muxuu yiri waa xamar yaa saa u galo leeyahay adeer xamar saale ma ahayn oo yiri dhanka kale safiirka Soomaaliyeed ee u fadhi doona dalka Sweden Cawaale Cali Kulan ayaa ugu mahadnaqay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed sida hufan ay ugu soo dhaweeyay magaalada Stockholm isagoo sidoo kale sheegay jaaliyadda reer Sweden qabadkooda uu sahay mid qarsoon aan salaan idinkaaga sido madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha mudane Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdisalaan Cumar Hadliye oo dhamaantooda yani codkiini aqbalay danta qarankan u arkay in hadda safaarad halkaan laga furo oo idankaas aan ku imid hadeertaan marka inaan taas la socotaan ayaan rabi lahaa sidoo uu danjiraha professorku u sheegay runtii ma qarsoona waxqabadka Soomaalida Sweden iyo Scandinavia oo aan wada matalo ma qarsoona maxaa la dhahaa caqabadaha iyo culayska idin haya dhinac walba ha ahaatee laakiin waxa kale oo intana keenay oo dadka caawa laga dhawaajin waxa waaye fursadaha idinka dhex muuqda fursadahaas waxa weeye qaran oo Soomaaliya dhaho oo dib ku dhacay muddo ka hor ayaa maanta halkan wuxuu ku leeyahay ummad qayb ka mid ah siyaasiyiin leh aqoon-yahano leh dhalinyaro leh oo laga sugayo talo iyo aragti iyo sidii walaalkeen xildhibaanku ugu soo gudbiyay fursadaha ay dalkan ku hormartay oo aan ka baran karno inaan ka qaadano ugu dambeyntii munaasabadaas oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxay ku soo idlaatay jawiga loogu talagalay Maxamed Cabduqaadir Daahir telefishinka caalamiga Soomaali Cable Stockholm Sweden.